أمانة أيان ولا جتكتي أمانة أيان هينا أمانة أيان وهينا دوينها قبل هذا لها أمانة ما مول هل كان نقول شيء سير هو كوي مال أمانة إن أمضي أنك تشلها إدتك إشكالها إنه وصل على تنا أو بالبيت waxaan diidan lahay gudiyada iyo maamulada Xasan Sheekh iyo Cabdikariim maanta la damacsan yahay ummadda Soomaaliyeed ee gobolada dhexe degan inay u gudbiyaan waxaan soconayna waxaan rabnaa sidii cadaalad looga bastay nidaam cadaalad ku dhisan iyo dadka gobolada dhexe waxay raali ka yihiin ayaa anagu raali ka nahay waxaan diidana waxay dadka diidan yihiin dadweyne iyo halkan yimid qaarkood ayaa dadku waxay ku dhaleeleen leeyahay Cabdikariim ayaa cadaalad iska cadaalad ma tagi karno waxaan sheegaynaa cadaalad cid ka male cid walba waa joogto maamulana ku yimid Cabdikariim cadaalad waxay u gooni u tahay male cadaalad dadkoo dhan u dhaxaysa anigu ku hadlayo magaca beesha reer Xaadisay waxaan gudbinayaa oo halkan sheegaya in aan bataasan diidan lahay wixii cadaalad labadaas guddiga Xasan Sheekh oo magacaabay iyo guddiga Cabdikariim oo soo wada waxaan leenahay guddi aan laga wada tashan ma ogolin dadweynaha la qabnaa abuud waxaan la qabnaa cid walba nidaam doonaysa sharci doonaysa waxay rabaan ayaan rabnaa midnimada Soomaaliyeed aan rabnaa midnimada gobolada dhaxaan rabnaa waxaan rabnaa wixii ukuntii ammaanada ahayd loo liibsay iyadoo halkeedas taa sidii aan u haynaa in lagu yimaado nidaamka Soomaalida cusub maanta la dhisayna inay noqoto mid dadweynaha ay raali ka noqdaan waxa la dhoobaayo waa kusoo horjeednaa hadalkana intaas aan ugu baxaa shirkan waa loo furay dadkana caburinta iyo dhibaatada iyo mahadli kartida iyo anaag ku xukuumahayada dadku aan ficmayso dadku waxay leeyihiin waxgarad siyaasiyeena waxay leeyihiin oday dhaqameedyo waxay leeyihiin culumaaddin waxay leeyihiin dhalinyaro aqoon-yahana waxay leeyihiin hooyooyin waxgarta afkaartoodana xor bay u yihiin wixii dadweynaha waxaan ku celinayaa mar labaad inuu xor u yahay wixii uu diidan yahay uu diidi karo odayaasheeda ku garab taagan inay diidaan wixii ay rabaanna inay rabaan hadda xisbiga laga cabtay guddiga laga cabtay guddigaas hadda la aasaasay guddigaas dadweynuhu waa diiday waa maqlaysaan horay waa u diiday haddana waad maqlaysaan maanta waa diidan yahay kuwa dambana waa hadda waa xafladuhu waa socon doonaan guddigaas waa dadku inuu diiday ha ogaadeen inuusa guddi macquula loo arag ha ogaadeen dadkuna xor buu u yahay inuu diido waxqabadkooda guddiyada markaan ka hor lama arag dawladaha aasaasay laftigooda waa la yaqaanaa waxqabadkooda guddiyada isku duway waxaa la rabaa dadku inaan la caburin berri waa furan yahay shirkaani saa dambe waa furan yahay soonqaad oo dhan waa soconayaa kadib waa ka daba marhayaa wixii lagu diidan yahayna dadweynuhu xor buu u yahay iyadoon qof lagu leexinayn oo qof been looga sheegayn oo qof lagu cadaalad darraynayn baa waxaa la leeyahay aqoontaasi nama anfacdo guddigaas uu soo saaro marka guddigaas laga cabtay waxaan leenahay odayaasheedu aanu afka odayaasha ku hadlaya waxa weeye guddigaas waa in dadweynaha laga daayiyo waa inay dhibka ka daayaan waa in dawladdii aasaastay ay wax ka bedesho waa inay asaga dhanba dib loogu noqdo intaasaan soo dhawaynayaa dadweynahana afkaartooda waa mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa kulley waa laga daragsan yahay sida wax u jiraan kulley waa laga daragsan yahay soomaalida mashaakil weligeed iska haystay baa jiray oo aan maanta ku cusbayn soomaalidu waxaysan rabin baa qoorta loo suraa mar alla markii fursada yimaadaan dadkanaguna kama ilbaxo inuu siyaasadda fudayd ku sameeyo
oo waxaan la gadan karin ku gato laakiin waqtigii waa dheeraaday dadkii waa daalay waa la isku fahmay barnaamijyadii fudaydka badnaan jiray gabay baa waxaa ku jirtay qofka markii inta la aamino oo wax loo dirsado uu waajibka gudan waayo wuu ka degdeg iyo baahi iyo jacayl badan yahay inuu taliyo wuu kaga jacayl badan yahay dadka xilkooda gutay ama bulshada u shaqeeya wixii loo dirtiyo waajibkaba kii isaga weecda waabay qaraar iyo midkii bala waraabsiiya waalkeed markuu kala haro meel warra ageeyo isagoon wax lagu sheegto iyo waran ka yaabaynin oo weli inuu waara raba siina wado hawsha waraabaha midkii daajay iyo weerka hilibkeedu waxaan nahay dad woodka xiga way kan leeyahay si kasta haddii la yeelo ninkii gudan waaye xilka oo ammaanadii lumiyey meel laga mara ma la helayo dadka Soomaaliyeed oo aan ka mid ka nahay waxaan filayaa inaan la qabno isqaas nagu ahayn cid uga mas'uula oo ugu maqan oo doorashada ay u dirsadeen cid guddiya oo uga mas'uula masiirka siyaasadda iyo doorashadan ma jirto oo ay sugayaan ma jirto waa cadaynayna cod dheer baan ku sheegaynaa aad iyo aad baad mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم أولاً هرت مقعي وحلي إلى عبد الفتاح صلاة جامع waxaan salaamayaa horta dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib kolley dadkan waxay iskugu yimaadeen meeshaan 25 sano yaa Soomaaliya waxay ku jirtay burbur iyo kala dambeyn la'aan iyo qaab darro iyo cadaalad darro aniga 40 sano ayaan jiraa hadda qof kasta oo dariiq hor yimaadana ma aaminayo qof kasta oo sheekh hadduu iga hor yimaado ma aaminayo inaan aamin waayana waxa keenay waxyaalaha arkay weligii cadaalad ma arag intaa kadib waxa weeye wax raba inaan ka hadlo haddii lahayd mawduuca ay dadku iskugu yimaadaan meeshaan waxa fiican in dadka muslimiinta ahu ama dadka Soomaaliyeed wax kasta la qabanayo inay cadaalad u tahay oo loo dhameystiran yahay waxaan ognahay guddiyada xamar laga sameeyay inaysan guddiyo xalaal ahayn inay guddiyo hal urur yihiin guddiyada halkan Cabdikariin uu ka sameeyay ayaguna sidoo kale ay yihiin hal guddiyo hal dhinaca waxaana wanaagsan wax loo wada dhan yahay oo dadku ay wada raali ka wada yihiin ama ururaha la kala aado ama qabiilaha la kala ama xisbiyaha la kala aado intaas kadib waxaa jirtay tix yar oo nin gabay oo nin tiriyay oo ahayd qarandoonka liitiyo damanuhu intuu karin damiirka ay farayaan anuguna digniin culus aan u diray dadweynaha ruux kastoo damiir low dalkii halis ayuu galay duul habaar qabaa yimid dadku ay ugu yeeraan xulafada da'ya ja inta aan la dabar goyn Soomaaliya isdaba qabo waxaan leeyahay marka waxaan ka dhiidhinaynaa waxa aan loo dhamayn oo haddana bilaashaatiga ah oo aan ummadda Soomaaliyeedna u fiicnayn iyo wax qabad la'aanta dhinac kasta ah iyo amni darrada salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inkastoo ololahan hore ugu jiray haddana ilaahay mahadiisa weeye haddii maaragtay nabadoonadeeni waxay ay ka soo qayb galeen hase ahaatee waxaan meeshaan ka cadaynaynaa siyaasadii in waxna lagu qabtay aan la arag dada la isku keenaya iyo beelaa la isku keenaya taanina ay ku luntay oday ka hadlaya iyo qof ka hadlaya iyo qof madaxa kor u qaadayana aan maxay taada ku horleeyeen marka aad waxaan ugu faraxsanahay maanta haddii dantii la wada gartay waxaan kaloo maxay tahay shagaan ka cadaynayaa miidiyaha
siyaasadii af ay awl ku ekeed waxqabad la-aan ay ku ekeed haddeerse waxaan caddaynayaa inayba isku beddeshayba in maxay tahay isaga dagaal iyo gacanka hadalba uu hadda maaragtay ku yahay mana doonayno mana u fadhino maamul maxay tahay isaga nala soo duldhigay weeye cid lagala tashaday aan la arag cid laga tixgeliyay aan la arag dadka deegaanka ahaa lagu tuntay hadda maskax kale in ay maamusho deegaankii wax soconaya ma aha waxaana aqoon xabadaanan aqoon maxay tahay askari maaragtay isaga iska socdo magaaladii ilmihii wixii oo dhan qoriga ku dhex wataanan aqoon amnigeeni faruhu ka baxay marka waxaa la rabaa in dalka dadkii lahaa uu u tashado oo uu ka hadlo oo uu maxay tahay isaga gacan bira iskaga qabto maanta midda ay ku jirto waxaan leeyahay nimanka meeshan ku xareysan deegaankan dadka aad u timaadeen haddii maxay tahay aysan idinka helin tixgelin iskaga baxa dadka u tashan jira u tashanaya waan idin salaamaya dhammaantiin badan oo ka sii fara badan baan ugu soo laabtay waxaa ka mid ah haddii aan la kuurayo magaalada la yidhaha cadaadaa la yidhaahdaa cid laga xiga cid laga yeeshay midna lama arag waxaa dhacday markii aan isnidhi aad haddii aan la kuurayo dadkaas walaalihiina iyo tolkiina iyo dariskiina iyo dadkiina aad waxaa nabad haysataan wax ka siisaan oon u yeernay annagu oo aan nidhi ha laysugu yimaado ha lagu heshiyo ha lagu weelo ha lagu nabdo magac iyo sharaf iyo maamul ha lagu yeesho markii aan isnidhi waxaan loo yimid dad haddii aan la kuurayo u ahaa haddii aan aragnay maamulkoodii maslaxadoodii dad col awal u ahaayo waxa ay haystaan iyo waxa ay yihiin dad haddii aan col ka ahaa baa noogu yimid waxaan u aragnay dadka yimid cadow inuu yahay oo maamulkan iyo maslaxaddaba uu dadka la diidanaa waxaan dadka aan u sheegaynaa inta aan annagu haddii aan la kuuro dhibaatadu nagu sii ballaaraan lahay oo dhibaatadu nagu sii kordhi lahay annagu ma sugayno waxna ka dhowri mayno umana jeedno ummaddana saasaan u sheegaynaa aad waa salaam سلام بعديجد وحنا لنا أنا وحنا عيادود وحنا اللي رايحات سليمان وحنا نورسنا مامول وحنا كسولو إن أمد الإسلام كمامول كي والدين بلارنا يا دولة فدرال وقليا بنا آدم وبحيا وحنا نوصل بحري إن لك قلبي وندر الله اللوجة شديد مامول كيجينا اللوجة دمية من مدى يدي اللوجة بابية wax maslaxa oo nooga soo baxa aysan jirin annaguna hal rooraan run moodni dad oo iska cadaalad aan ahayn waxaan maaragtay tixgelinayn maamulkii aan dhisanay oo yacni deegaanaan u dhisanay nabcadii aan ku gaarnay haddii mid federaal ah oo ballaaran oo dawladda dhexe gaara oo muslimiinta ka dhaxeeya oo idinkugu soo kordhay adinkuna aad muslimiinta ku soo dhaweyseen waa maaragtay waxba idinkugu waxaysmahaya kor baad ugu kacaysaan waxba idinkugu dhaqan galaya mana noo soo bixin iyo dad danley ah oo yacni haddii ay tahay guddiyaal hadday tahay dhismo hadday dalka nabadgelyadiisa tahay aan isleenahay dhibaato badan baa idinkala soo daristay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasaan kusoo dhaweynay سلام كبعد وحنا ماشان كجا هذا شعبك حماني يحرق إكس يو فكر كجوحة كتشرة وأي عملها دربية لا فرنا وأنا عد كي دون إن ساكل كان هو سيدين وحوي أنت سايت هاي أنا يا وحنا نور سناتري معمول حماني يحرق دي شيء ومدب بدن نور بسنا معمول كاسي وحنا كوهي سنة برنامج شيء فرق بدن aqoonsi fara badan horumar fara badan baanu ku haysanay oo aanu dal magaaladaas aanu joogno deegaankaas aanu joogno wuxuu noo ahaa deegaan amni ah xabadaanaan aqoon oo qofku haddii uu caawa baarka maxaa ahaa xabada dhacdo u leeyahay war maxaa meeshan ka dhacay yaa waxbaa dhacay ma dhib baa yimid dadku ay ka fakareen waxaa noo bedelmay inaan habeen iyo maalin guryaheena seexaweyno waxaan loo bedelay in gabdhaheena iyo caruurteena ilaamiyada maraysay mobilada laga qaato laga dhaco waxaan loo bedelay inaan maxkamad baa noo fujirnaa jirto markii laba isqabato waan dhex geey jirno sharciga islaamka ay u kala qaadi jirtay wax maxkamad hirgeliya ee wax taasi midna aan la arag waxaan loo bedelay marka waxa weeye anaga hal roor baa run moodnay ummadii markii dawladda federaalka ay noo soo jeediyeen inay dhisi doonaan maamul wanaagsan
oo dadka gobolada dhexe ka dhexeeya oo horumar gaarsiinaya oo abteenay ayaanu u talagalnay inaan anagu waxaygi aan qabnay iyo wixii aan qabnay iyo amnigii aan qabnay iyo horumarkii iyo istiqraarkii aan haysanay inaan ka tanasuna waan ummadda kale aan wax la wadaagno waxaa baalka maxaa taayidi aan isku dhigin waxaa nool kugu bedelay barnaamij abaal afduub ah oo aan shacabkiina la kala tarsan oo oday lagala tashan oo wax walba soo xamar inta laga soo dharandhiriyay xisbi soo dharandhirsaday xoog ku qabsaday deegaankii oo afduub waxaana la ku qabsaday maalinkaas la nabtay oo dadkii shacabka dhibaatadaas loo geystay wixii ka dambeeyay ciidankaygii oo aan lahayn ama nabad sugid ha ahaado ama ciidan daraawiish ha ahaado ama ciidan boolis ha ahaado mid maanta ximan iyo xeeb ka shaqeeyo oo raggii anaga la qorshada banaanka laga wada dhig meel walbaaba meel cilaab fadhiya maxkamadayn ma noo shaqeynayaan baalka maxay xafiisyadii ma noo shaqeynayaan kulli kor waxa ka qabsaday niman xisbi ah dantooda kaliya ahaa inay midna ku ilaashadaan oo baalka maxay maamulka ay magac kaliya ku ilaashadaan wax ay deegaanka ka qabtaan leh waxay maanta taagan tahay ilaa bariyahan waxa dhiransantiin in dagaal ka socdeen qaydaro baxdo maarsamag ilaa intaan wax garto waayaas ma maqal aagaas xabada ka socoto laga leeyahay qaydaro iyo baxda xabada ka socota iyo maarsamag ya waa tiin dacdheer dadkii baalka oo ay 25 sano la deganaa oo shacabku ay deganaayeen oo guryahoodii dhaqatay laga soo barakacay waa wax ka hadlay xitaa iyo wax iska daba katay wax ka dadkeena meesha dhooban yihiin aan la arag waxaan u arkaynaa inay khiyaamo ahayd maamulkiina loo dhisay xisbi nagu khiyaamay dana ay rabay lahaa inuu ka gaarsanay waxaan haddeerna ka soo jeednaa midka kale oo ay abaabulayaan oo ay sidoo kale rabaan dadka inay ku khiyaamayaan dadka ximan iyo xeeb waxaan leeyahay war salaad khaldanteena maanta ha khaldaminin wax gafaham kuwii shalay maamulkiinii burburiyey caqligiinii wax diiday aqoon-yahankiinii diiday waxgaradkiinii diiday dadkiinii soo barakacshay haddana maanta ha u noqonina dad kale mar labaad u xusuudoobay xisbiyada la abuurayo ama lagu baalka maxay ahayd lagu dhawaaqay dadka lagu dhawaaqay leeyahay waxa la abuuray baalka maxay ahayd gudiyadu waa kuwii shal dhibaatada noo geystay gudiyadu kuwa nagala tashan kuwa aan la kala tashan shalan ku baabash mid dambe aan la kala tashan iyo mid kale tan anagu wax taageero ma hayo mid taageero aan u cadeyno bareerkeena iyo ujeedkeena iyo hadafka aan leenahay iyo rabitaankeena shibi waa raaliya Soomaalidu tira hadaan ka aamusno waxay magacaabeen Cabdikariin iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxay noqonaysaa inaan nahay dad raaliya laakiin waxaan muujinaynaa shucuurteena iyo rabitaankeena iyo sida wax u jiraan iyo sida wax loo qaybsado inaysan noqon karin mid cadaalad sida ay wax u qaybsheen ama ay wax u soo magacaabeen mana ka aamusayno beenta indhaha hadaan aan ka daboolan runta indhaha aan ka qarsanayna runta indhaha ka qarsanayna runta dadku u sheegaynaa waxay runta tahay waxa ay meesha ku dhoodhoobeen inaysan waxba ka jirin loona dhamayn raalina aan ka ahayn dadna hanan karana aysan ahayn sababtoo ah